aad baad umahadsantay walaal Faadmo. Dhammaan ardayda qalin jabinaysa macallimiinta maamulka SFC dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Caawa habeen weyn sidii hore naloo soo sheegay taasi oo ku weyn gaar ahaan ardayda grouptan anigoo ka mid ah xubnaha ka mid ah grouptan waxaan halkan ka soo jeedin doonaa laba qodob waa maxay liquidity iyo waa maxay fake breakout iyo maxaa lagu gartaa iyo goormay dhacaan qodobadaas bas la eegi doonaa. Liquidity waxa weeyaan meelaha uu suuqu inta badan meelaha lacagtu taalo waa la yiraahdaa marka meelaha lacagtu taalo inta badan stop-ya la dhigtaa dushiisa sare ama hoostiisa markuu joogo suuqu hoos taasoo macnaheedu ka dhigan tahay inay bangiyadu soo yani bullish gareeyaan ama institutionadu ama ganacsatada jeeb weynta ee lacagaha haysta meelaha markaa laga faa'iideysan karo ama amaradaasi kasoo fulayaan iyo sida aan ku garan karno calaamadaha sawniska ayaan baran doonaa iyagana liquidity-ga marka qiimuhu waa inuu price-ku wuxuu gaaraa ama meel hoos u gaaraa ama meel sare taa micnaheedu waxa weeyaan qiimuhu hadduu meel hoose joogo suuqii inaad hoos kasoo raaci karto sidoo kale haddii uu joogo meel sarena aad kasoo raaci karto sidoo kale kandhalku ama waxyaabaha lagu sii gartay gaarka waxaa kamid a kandhalka wigag dhaadheer buu sameeyaa sidoo kale foliumka si lama filaan ayuu kacaa marka suuq lacag soo gasho oo manipulation fara badan baa lagu sameeyaa sidoo kale liquidity-gu si wuxuu markaaba wuxuu isku soo rogaa marka suuq lacag soo gasho si aan caadi ahayn kaas waa introduction yar oo ku saabsan liquidity-ga iyo meelaha lacagtu taalo iyo cidda boongaraysa iyo calaamadihiisa aan soo sheegnay fake breakout-ku iyagu waxa weeyaan way kala duwan yihiin laakiin meel biska yar yihiin marka fake breakout-ku waa sida caadiga waa jabitaan breakout waa jabitaan isagu marka fake out-ka ayaan isagu awoodda isagu magaranaysaa break waa naqaanaa laakiin fake out-ka ayaa nagu cusub marka waa jabitaan beena ama dabin loo dhigayo dadka yaryar marka jeeb yartaa inagoo kale ah marka kii hore waxaan kaga warramaynay in suuqa manipulation lagu soo sameeyo lacaga fara badan lasoo geliyo liquidation kanuu kasoo horjeeda fake breakout wuxuu dhacayaa marka tusaale ahaan oo kale khiyaano cad baa lagu sameynaya dadka qiimaha ama lacagaha yar sita tusaale ahaan oo kale sawnis aan calaamadsanay ama support ama resistance meel aan dhiganay ayaa la jebinayaa taasi oo ah in lagu sameeyo fake breakout qofkii sawnka dhigtay ama break dhigtay supportka ama resistance meesha u yaalay suuqi markuu uu soo gaaro isagoo rajeynaya inuu qiimaha halkaa ka raaco haddii sharcigaas haddii uu jebiyo markaa breakout haddii uu dhaco isagoo ku tashanaya markaa qofkii inuu breakout maadaama uu dhacay suuqan lasii wadi doono sii raaci doono laakiin khiyaanaa dhici doonta qofka ku cusub ama jeeb yartaa si loo qiyaamayo marka waxa la samayn doonaa waxa dhici doona suuqiina fake lagu sameeyo lasoo kala rogo taasi oo si aan caadi ahayn suuqa inta loo soo daadiyo qofku ku khasaari doono calaamadihiisa isaga waxaan ku garan doonaa range badan sameeya calaamadihiisa waxaa lagu gartaa inuu u muuqdo foliumku inuu hoos yani lacagtii oo kale laga saarayo oo kale kandhaligiisu uma xirmo sida kuwa dusha oo kale wiiga dhaadheer oo kale sameysama sidii wax rejection lagu soo sameeyo oo kale waxay dhacdaa inta badan markuu liquidity meel laga qaado tusaale lacagtii meel laga qaaday marka su-aashiidu waxay tahay uun qofka tusaale suuqan ku cusub ama istaraatiijiyad sax haysan ama suuqa fahansanayn waxaa noqon doontaa gambling amba meelo nasiiba oo suuqu yani iska soo galo iska khamaara taasoo marka dambe qofku ka niyad jabi doono dhinacaasaan kusoo koobaya aad iyo aad baad mahadsantihiin caawa habeen ugu weyn hambalyo jiitan